faith and you say you are a Muslim. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الذكور قوامون على النساء مدرسة ولذلك حكى Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kusoo dhawaada YouTube channelkayga Alicia's Family. Magacayga waa Aisha. Haddaa YouTube-kayga ku cusub tahay, subscribe, like and share. Sidoo kale ha naga iloobin. Maanta waxaa idin wadnaa another vlog inoo soo diyaarisay walaasheena Ayaan oo ku saabsan muxaadaro ka socotay magaalada Toronto oo noo soo jeedinayeen Sheekh Usuli, Sheekh Abubakar walaalkiis iyo culimo badan iyo culimooyin kale. So waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysiin insha Allah. waxay ku saabsaneed wacdiyo iyo ducooyin iyo su'aalo ay weydiinayeen bulshada culimada. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ويديو wuxuu ku yiri maxaa dhacay oo soomaysan waxay ku yiraahdeen maanta oo kale waa maalintii Ilaahay u gargaaray Nabiyullaahi Muusa iyo qoomkiisa waa maalintii Ilaahay halaagay Fircawn nabiga calayhi salaatu wasalaam hal ay yiri wuxuu ahaa annaga idinka mudan annaga idinkaga awlaysan Nabiyullaahi Muusa kadibna waa la soomayay asxaabu rasuulillah waxay ahaayeen kuwa soomiya caruurtooda Asma binti Abi Bakr oo ka hadlaysay waxay oranaysay caruurta yaryar markay gaajoodaan waxaanu ku maaweelin jirnay cayaaraan u samayn jirnay si ay u hilmaamaan gaajadii qisada waxaan u soo qaadanayaa maadaama maanta aynu joogno waxa ay ka dhigan tahay quraanka markaa dib ugu laabatid ilaahayna inoo sheegay subxaanahu wa tacaala xaqi iyo baatilkii loolanka ka dhaxeeya khayrka iyo sharta loolanka iyo tartanka ka dhaxeeya wanaaga iyo xumaanta tartanka ka dhaxeeya mar walba waa jira waa soo jiray waa jira maanta waana jiri doonaa weligeed ba khayrka iyo sharta tartan baa ka dhaxeeya xaqa iyo baatilka tartan baa ka dhaxeeya wanaaga iyo xumaanta tartan baa ka dhaxeeya maalmaha khayrku uu liibaanta iyo guusha helay inaynu xoojinno in aynu xusuusnaano maalinta sharta dhulka ay gashay ee la burburiyey inaan la hilmaamin maanta aynu joogno hadalkii walaalkay Xuseen baan dib ugu laabanaya xaflado badan baa waddanka weydiinta dadka iyo ka jawaabistooda oo aad muddo ka soo shaqeynayay dhammaantiina dabcan waad ogtihiin su'aalaha aanan marnaba ka gambashada lahayn la weydiiyo isagana sida waafiga ah maaragtay kala digdigan dadkeena oo cuquushooda iyo weynayso waa maalin Ilaahay agtiina ka weyn subxaanahu wa tacaala waagii hore waajib ay ahayd in la soomo laakiin maadaama bisha ramadaan Ilaahay nagu waajib yeelay yaa ayuha alladhiina aamanuu kutiba calaykum as-siyaamu kama kutiba cala alladhiina min qablikum la'allakum tattaquun aayadda Ilaahay soo dejiyay subxaanahu wa tacaala waa intii magaalada Madiina la joogay sunnay isu bedeshay laakiin wixii ka horeeyay 13 sano ee Makka waajibayd in la soomo maanta oo kale waxay nooga dhigan tahay sababtu maxay tahay sababteedu waxa ay tahay nabiga waa dukanaynaa rag iyo dumarkaba kadib su'aalo jawaabina bilaabaynaa taas oo dunyada الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. We begin by first praising Allah subhanahu wa ta'ala. We send our peace and blessings and salutations on our final prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وحالي قاعد صديقين سي والله قال الله الله إن شاء الله عبد الدار أنا أقول حيا سي والله سي بالله يعني
Inshallah, the topic that I've been given is called istiqamah, which is staying upright and being upon the path. And this is something, dear brothers and sisters, that we all strive to do. And this is something that our deen encourages us. A man came to the Prophet ﷺ, the great Sahabi Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi radiyallahu anhu, and he said to the Prophet ﷺ, O Prophet of Allah, you say you are a Muslim, you are a mu'min, you are a muwahhid, then what is recommended for you is to be upon that path of istiqamah. And this path known as istiqamah is a path that leads to Jannah. It is a path, قولا لا أسأل أحدا بعدك أو لا أسأل عنه أحدا غيرك. Say to me a statement that I do not need to ask anyone else after you. And the Prophet ﷺ said to him, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. He told him, say, I believe in Allah subhanahu wa ta'ala, then be upright, be upon that path. And being upon that path, the prerequisite to it is Iman. Taking the step of being a Muslim, holding on to this deen wholeheartedly, being the people of Iman, being someone that is connected. ولذلك waxaa kaafisa gabdhaha dhanba salaadooda iyo soonkooda waajibaadka Ilaahay gutaan wax kalaba inay hoola kala diin badan fara badanta iyo waxa ugu muhiimsan inay jiilkan ay soo saarto laakiin wiilka oo gabadha guriga maamulayo waxa la leeyahay gabadhayda aan siinayo waxa la yiri laba sharti la rabo diin kaliya laga maro ida ataakum man tarduna diinahu wa khuluquhu ولذلك الدين يا خلاق الله بيكلنا نقدنا هالكلام محايا لين ودادا جرا ومساجد صلاة كتب كذا وقركي سويه وقميص كيس جابيه أنت القرآن حملسن لكن حاسس إنه دقا أخلاق يسحونه دقات ملح أخلاق ده كنت نوينه محاسن الأخلاق القرآن كشجنا معها معايا الرجل ده أم لا إله إلا هاي الرجال ولذلك أما هو يدا حنوب إلا ولا إله إلا وسي حديث حنوك إله بلهين دمرك إله هو أبو رتاع أدونك أمتر مين قبلنا مركي فولا نيسو إبكي أي مرة يسو هو يوكي إله هنا حديث لمان تدو إبكي أي مرة يسو إلا أي مرة يما قرآن قعدوا حديث قبل كنت ناسين منسير محاو هذه محاو دي موين عيسى مركي دلا يسجيت كي قلت لا أدل فوش درادي دي تري هذا إله سبحانه وتعالى فين قبل أصلا فوش دبكي كمرتك أفرتن عشو مش يكون جرتكلي وي وإلا بيسا أفرتن كتبي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم حقيقة الحمد لله إله ما هذا مرك هوري دد مسلم نقلقي وهذا وحالة سدو كلام ولعليه برنامج هنكسو شقيه لمان أنت حاضرتي أنت وقت وصهرتي خاصة غير ترنو وآدي حقيقة سوى ناكسن وكالقعين له خوامون على النساء قليل ذكور لماذا؟ إيه رجال لماذا وكندوا أنت رجال وحواليك موقف طليع رجال لا تلهيهم تجارة عن بيع عن ذكر الله إله رجال وقت الماما لك عن صلاة عبادة الله كمشغولين كاسا رجلا وحا انت أصليها مرك هدي يقولك عبادة إله راد يقول هذا هل كان كأني إخواني هلقى إلى قويس كلمة دينتا هلو عليو هذا ربنا إنا فلحنو قويس دينتا عبادة وقدك الزواج من سنته النبي عليه الصلاة والسلام بس هلب قرصة لليه يا معشر الشباب من استطاع منكم لا فليتزوج ورنكي ولا يرب قرصه عرفتين هذا بيتك جامعة كم بحين سكسسفول النقدين هو لبض معنا هوي فرحيو ما شاء الله هوي فرحيو إلهي ما قاعد تشوف فرحية فرحت ويا إلهي سبحانه وتعالى دونك وحيكون فرح آخرا وحيكون فرح الله سيء قبل أن نسده وكلا ما شاء الله وخيرك هناك جعل أيضا الإله باكيو هوي نقول سلام إن شاء الله شكرا يا وعجعل هالك مسكي إيو أيان أنا أقوم عليه ما شاء الله تعالى هذه هذا أقوم سنتين وسلامتين إلهي حفظيه ما شاء الله ودونا إن شاء الله ودعي سيبو